awadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shirnaa ee aan nooga barateen halkan inaan udiga soo gudbino si joogto ah si ay ula socotaan xaaladda aynu ku jirno iyo meesha uu marayo wadankeenu ama deegaanka ay Soomaalidu degtaa maanta 3 qodob ama 4 qodob oo isa saaran ayaynu isku barxaynaa ama isku kashkaashaynaa musuqmaasuqa ereyga la yiraahdo ee ina aafeeyay ee inaga daran aafadan corona ee haysataa dawladda ummadda Soomaaliyeed ereygan dimuqraadiyadda la yiraahdo ee la inoo soo rarayo musuqmaasuqa halka iska soo galaan jeeha habaabinta ummadda lagu hayo ama dacaayadda ereyado propagandada iyo sida loo qaybiyay ummadda Soomaaliyeed iyada oo rag adeegsanaya ay ula macaamilaan sidii qabiil ula isticmaalaan musuqmaasuqa ereyga la yiraahdo ama alfasaad Soomaalidu marka oo horeysa ay maqasho xatooyo ama xoolo la boobay bay ka eegaan musuqmaasuqu xoolaha la boobay iyo xatooyadu waa mid kaliya oo kamid ah fasaad baa la yiraahdaa waxa ummadaha baabiya wixii caalamka soo maray ama haato dawladdu Cusbaaniyiintu markay dumaysay ama tii Faadimiyada haato ama Amawiga markii u dambeysay haato boqortooyada Raashiya haato Germany ogeydeen Helmut Kohl ninkii labada Germany mideeyay maalintuu musuqmaasuqa galay ayaa dibadda la dhigay lana ceebeeyay way ummad soo jeeda ayaa halka wada joogta hadduu musuqmaasuqu ka galo dhaqaalaha oo la musuqmaasuqo hadduu maamulka ka galo hadduu maxkamadaha ka galo iyo hadduu ka galo warbaahinta afarta ay gacanta ku qabtaan dadka musuqmaasuqu waa afarta waxa weeye xoolihii dadka oo xatooyo laga dhigto maamulkii dadku wada lahaayeen oo dad gaar ah loo cayimo ama iyagu ay soo cayimaan warbaahintii ka hadli lahayd ee ummadda u soo diri lahayd oo lala dagaalamo badhna la iibsado badhna la kala yaaciyo dhammaan markaa waxay noqonaysaa tin iyo cidhib waxa meesha ka jira maxkamadihii ama xaakimkii intuu soo istaago oran lahaa war lacagta ummadda ayaa leh qofkana maxkamadkiin lahaa meesha maamulka haysta oo isagu musuqmaasuqiisna ka qayb ah marka fasaadku dhan walba uu kaga dhacay ummadda Soomaaliyeed 5 meelood ee is ilaalinaysayba meel kaliya ayay gacanta u gashay oo ninka meesha jooga ee madaxweynaha lagu magacaabo ama qabqablaha weyna ka simantay dhammaan deegaanada Soomaalidu ama kuwa xorta ah ama kuwa aan xorta ahaynba sababta loola dagaalamo qofka baraha bulshada ka hadlaana macna kale maaha askarigii ilaa maxkamadii ilaa kii meesha haystay ilaa kii baarlamaanka lagu sheegayay deegaanka Soomaaliyeed meel baa laga wada maamulaa dhammaantoodna suntii waa la wada gaarsiiyay musuqmaasuqa iyo eexdii iyo kala basashadii marka qofka gudaha jooga ama waa khasab laaluush ku qaataa haddii si kale loo maareeyo la waayo haddii kale waa tiifiyadii la xidhaa baraha bulshada qofka wax kusoo qoray gudaha jooga waa in la xidhaa ka dibadda jooga waa in dacaayad lagu soo furaa oo mustahdaf noqda oo la soo ataagareeya way shaqayn weyday cayba lagu bilaabayaa way shaqayn weyday iyaga laftooda waxa la isku dayaa marka in la laaluusho oo la wasakheeyo ay fasaadkii qayb kamid noqdaan asamaga tacafur min ra's weeye kalluunka ka soo bilaaba madaxa marka waa siyaasad quruntay oo qofkii meel allaale iyo meel uu uga bixi kara doorasho ka saari kartaana aanay jirin dimuqraadiyad ka saari kartaana aanay jirin shacab soo jeeda ama ninkii kartida lahaa ee waxgaradka ahaana banaanka ayuu ku xidhay hadii kale jeel ayuu ku jiraa marka taa laga quusto in qofkii lacag lagu qarciyo 10 jeer la soo hadlo ummadii dibadda ka hadlaysay waxa laga dagaalamayaa qofka la dagaalami maayo ummadiina ay daawanaysa ayaan la doonaynin xaqiiqda meesha ka jirta inay ogaadaan wax dambi ah oo aniga iyo dadka la mid ah ee idaacadaha ka hadla ee soo sheega waxa jira oo ay ku qabaan ama ka dhaxeeya dadka meelaha ka taliya ma jiraan ee waxa la diidayaa warkan inuu gudbo way warkan hadduu gudbo wixii ummadda gudaha ku jirta badhna waa la bajiyay badhna waa la xidhay badhna waa la laalushay wixiina caadi baaba looga dhigay xaaraanta ahaa wax lagu faano ayay noqotay halkii la oran lahaa qofkan maxaa loo qaban waayay maxaa joornaalada uga hadli waayeen maxaa maxkamad loo geyn waayay maxaa shacabku soo mudaharaad waayeen wax lagu faanay noqotay 3 beerood buu leeyahay 2 group buu leeyahay 25 gaari oo shaqeeya hadduu xanuunsado Indonesia isku soo daweeyaa marka ayay bilaabmaysaa dacaayadii raqiiska ahayd ee xamar buu lacag ka qaataa tusaale gaaban ninka musabixi la yiraahdo ee ka taliya meeshan jasiiratul waqwaq Somaliland loo yaqaano waa arkayeen oo wuxuu u tagay Ethiopia inuu farmaajo la kulmo si uu lacag uga soo qaato way suurta gali weyday uu soo noqday wuxuu cararay meesha Djibouti la yiraahdo lacagtii hore hana loo soo furo waxa laga wada hadlayay intaas u baahay laakiin ummadda dadka kale waxa lagu eedeynaya lacag bay ka soo qaadanayaan waayo waxaan galay halkii sayidka iyo cabiidka in ummadda la yeesho oo qofku isagu waxa uu doono uu sameyn karo laakiin ummadda kale aanay meel la aadi kareynin ay u garbadubnaato halkaasna waxa la yiraahdaa musuqmaasuqa waxa la yiraahdaa fasaad iqtisaadi ونوع وحن متكمدة كي إداري قوينك وهرو قصوا هذا اللي
dad karti la'aana oo isku reera ayaa maamul goboleed walba oo Soomaaliya joogto hor fadhiya kuwii kartida lahaa ama aqoonta u lahaana dibadda ayay joogaan way dhaqaalihiina gacanta kuma hayo ciidankiina gacanta kuma hayo baarlamaanku sheegiina iyaga ayaa gacanta ku haya kaloo taageli waayaana waa nin la sumeeyey oo isaguna ah laaluush qaate madax dhaqameedkii ayaa iyagana la sumeeyey oo lacag qaadanaya oo intuu qofku ka fikeri lahaa ifkiisa iyo aakhiradiisa halkan ayuu ka mushahaar qaataa marka waa wadan mustanqac waa dad boosaneero ku wada dhacay ama bulaacad ku wada jira kuwa kale ee loo taageli waayo waa ogtiin journalistayaasha ah ee wax la iskaga sameeyay la waayo waxa iyaga lagu soo guraa jeelal oo idinka mar walba arkay iyagoo meel ka qaylaya ama wadanka waa inay ka cararaan oo meel kale ay aadaan intaa oo nabar oo ummadda haysta ma la oran karaa qofka noocaasa ayaa doorasho u qabanaya qof waliba waxa laga yaabaa inaan dhan u bato isagoo maamul goboleedkiisa u qaataa oo ku miisaantaa formuladan waxa ka taagan iyo sida u qaybsan tahay iyo waxa doorashada lagu magacaabo iyo sida u shaqayso meesha jasiiratul waawaaq la yiraahdo ee meeshan Somaliland ku magaca dheer leh riya raacba u qabanaya baa la yiri oo ay ogtihiin qofka uu yahay kuwii mucaaradka ahaana way aqbaleen way iyagu waxay eegayaan interestka dantooda shakhsiyan waxa iyaga ugu jira way intan oo wax ay ka soo hadli lahaayeen haddii ummadda dan ka leeyihiin lacagtii ka xidhnayd ayaa la doonayaa in la soo furo oo loo soo furo oo meesha markaa ay ku qaybsadaan lacagta meesha taala in sumcad loogu sameeyo dictatorshipkii meesha ka jiray ee qabiilka ahaa ee inta aynu soo sheegnay ee fasaadka ah ee caalamka laga digayba waday ee ku shaqaysanayay in isagii sumcad loogu sameeyo oo la yiraahdo doorasho ayuu qabanayaa musuqmaasuqii iyo cashuurtii la labanlaabay ayaa lagu kor sharciyeynayaa maamul goboleedkii gacanta ugu jiray heegada ayaa lagu kor shaqaynayaa xildhibaanada la dooranaya waa kuwii ka warhayseen itaalka ay leeyihiin kuwii intii la sumeeyey mooye intii kale ninkii odayga ahaa ee dhakoor suuqa laga taxaabanayay waayo 3 daa'iradood ama 4 daa'iradood ee xidhnayd ee ciidan lahayd ee dhaqaale lahayd ee warbaahin lahayd ee maxkamada lahayd ee maamul lahayd ee baarlamaan lahayd intiiba qof faasida oo musuqmaasuqa ayay gacanta ugu jiraan arjuuqii dheh iyo jeelka ka cawe weeye maamul goboleedka kale dhankeena iga xiga ee kan ku da'da xiga ee Puntland waad arkaysay oo ninkii odayga ahaa ee loo jiray dhooba daareed markii uu hadal 3 eray oo nin uu weydiiyay xildhibaani ninka meesha ka taliya ee Deni aad arkaysu fadhii kar waay dhageysan kar waay dadkan waa dad ay leeyihiin nimanka meesha ka taliya sida iyagu arkaan tuuganimadii ayaa lagu kor sharciyeeyay oo dimuqraadiyad kugu kor noqotay waad arkaysu uu hayn kar waayay degdeg to meeshii uga baxay oo hanjabay ayaa maalin labaad diina inta ciidan la soo galiyay baarlamaankii lagu lahaa sharci dejinta weeyaan ayaa la burburiyay rasaas lagala daalay dibadda la dhigay nin suuqa joogay ama meesha dhex fadhiyay oo ahaa dadka u shaqaynaya iyaga ee amarka ka qaadanaya ayaa meeshii lagu soo bedeshay sidaas uu sii soco nin walba maamul goboleedkaaga la aad ama bari ama galbeed meesha uu doono habeenaga xigee arrintaas ayaana keentay in markaa lacagtii ummadda wax loogu qaban lahaa la geliyo fasaadka intaa leeg ummadaasina way ragaadaa ano gadaal kaga xidhi doona waxa ay arrintaasi dhasho ku darso dadkii majority-ga ahaa ee meesha ku noolay ma rabaan musuqmaasuqan iyo waxaan ku dhacaya ubadkooda iyo mustaqbalkooda iyo masiirkooda laakiin dadka horjoogayaasha u ah ee dhan walba ka socda muxaafad leh ee mucaarad leh ee leh jindagaagayska madax dhaqameedka ah iyo kuwa meesha maamulaya intii oo dhami kuwana wax sandareera loo tuuraa kuwana waa kuwa meesha ka ah kan oo ana rabbukumul a'la waa halkii fircoon uu gaadhay markuu ummadda la hadlayay marka majority-gu iyaga laftoodu dambiga ay leeyihiin waxa weeye sida ay caalamka nimanka aanu ku noolay ay aragteen ay u shaqeeyaan systemku dadka ayaa keenay ee maaha wax iska yimi oo bilaash ku yimaada u fiirso dhammaan baraha bulshada ee ka soo baxa maamul goboleed walba ee magaciisa sita ama magac u eegsita ka raaci waayo tubta iyo wadada ee sheega xaaraanta iyo boobka iyo fasahaadka iyo xatooyada waa la mamnuucaa waana la taargadgareeya mana ka shaqeeyo tviyadana iyaga waa la xidhaa oo waxa la hayaa meeshii ay joogeen ay deganaayeen iyo xafiisyadooda inta ka soo hadha dacaayad baa laga furaa qofka dibadda jooga ee loo taageli waayo kuwa kalena lacag ayay ku qaataan tusaale kooban websaytada ka soo baxa u fiirso meesha la yiraahdo jasiiratul waaqwaaq ee Somaliland ku magaca dheer leh subaxii markaad sidaa u furto ayaad arkaysaa warka ugu horeeya ee meesha ku jira subaxnimada inuu yahay dad meesha lacag ku qaata oo ka qayb noqday rejiimada meesha ka taliya ama talisiyada faasidka ah ee musuqmaasuqa ee ummadda baabiiyay mid kuwa ka mid ah oo guddiga ka wada dhareegsantihiin ka soo baxa meesha la yiraahdo Somaliland ku magaca dheer jasiiratul waaqwaaq ayaa ka saaw eegay subaxnimadii waxay kaga soo booday
beesha caalamka oo taageero u muujisay jamhuuriyadda Somaliland hoos markaan u sii eegayna waxa war la soo sameeyay oo uu lacagtiisii ku qaatay isagoo fake news waxa caalamka kale laga yiraahdo ee la iska ilaaliyo isaga cidina ma maagto cidina ma dhibaatayso lacagta ugu badan maamul goboleedadu ama haada ka Puntland jooga ama ka Somaliland jooga ama ka Qoorqoor jooga ama kuwa ka sii shisheeya waxa ay ku bixiyaan sidii ay sumcad ugu samaysan lahaayeen maadaama aan wax sumcad ah oo meesha ay ku leeyihiin aanay jirin kii labaad ayaan furay ee website-da lacagta la siiyo ee ka soo baxda meesha Somaliland ee ku magac dheer Jasiiratul Waaqwaaq waxa ku qoran gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay in xubnaha xildhibaanadu isugu yimaadaan si loo fuliyo sharcigii hirgelinta doorashada meesha 15 sanadood la fadhiyay ee inta ay ogtihiin ee musuqmaasuq ka taagan tahay ee ay caalamku u qireen ee intaanay aafadan corona dhicin ogeydeen oo Human Watch ku ay sheegtay in dadka halka ku nool 60% ay ka hooseeyaan khadil faqriga macaluusha inay dadkaasi gaadheen ee aan qof ka hadlaya jirin ayaa kaasina taas ayaa ugu qoran kii saddexaad website-ka meesha ka soo baxa la yiraahdo Somaliland ku magac dheer Jasiiratul Waaqwaaqda ayaa furay waxa ku qoran gudoomiyaha guurtida jamhuuriyadda Somaliland Saleebaan Gaal oo halka kala hadlayay xildhibaanada ayaa uga xog waramay heerka ay marayso doorashada iyo ictiraafka iyo horumarka waddanka dibaro eegay Saleebaan Gaal wuxuu lahaa waa qaybtii kamid ah faasidiintii meesha joogtay faasidkii ugu weynaa wuxuu halka ka lahaa markii uu Djibouti tagnay cid ina dhageysanaysa ma jirto cid ina doonaysa ma jirto waa markii u horeysay ee la ina dhageysto madaxweynuhuna wuxuu ku yiri tii weyneyd waa Israaci Soomaalida taweyn ee dadka laga qarinaya meesha lagu soo iibiyay maamulka heegada tii weyneyd haba inoo dambaysay waxaan ku niri wixii lagu heshiiyay waa lacagta hana loo soo furo marka waxa weeye meel fasaadkii uu gaadhay afartii jaran jiray uu gaari jiray maamulkii oo faasida oo dad isku reera oo aan aqoon iyo karti lahayn ay haystaan maxkamadihii oo dad la keensaday oo laaluush qaatayaal ay gacanta ku hayaan baarlamaankii oo laaluush qaatayaal إعلامكي iyo warbaahintii oo laaluush qaatay kuwii doorashadeedii qabanayay oo raaca kuwii mucaaridka oo wax alaale wixii iyagu doonayeen u saxeexaya iyagoo eeganaya danta kursigooda iyaga ugu jirta ma hata ummadda ugu jirta waayo meel kale oo caalamka doorasho la iskala qabto oo faasiq doorasho lala qabtaa ma jirto taa waxaan taa ii daba taala oo aan ku daraya isla markiiba waxaad arkaysaa waxay tahay nimanka Yemen la yiraahdaa cawrati namlah qayr makshuufa quraajada baasha la yiraahdo cawradeeda lama arko waxa la doonayaa in waxa oo dhami ay isku asturaadaan oo aanu qof waaxid afkiisa kala furin oo qof waaxid aanu wax ka qorin oo qof waaxid aanu sheegin dhibaatada meesha ka jirta oo caabuqa aan korka uu laga dhayo oo la yiraahdo miril guudkii waa la dhayaa saacada imika aan idin la hadlayo hadii aan bedelo waxaan xaqaa'iq aan idin soo gudbiyo وأن كهذا لو حكوا قرن وسيطة النوع عصا كوشة إلا عكت السيان يجوا إلى صوت اللي ترى الله بتشير لما كجودها جوا يجوا يقول هذا إلى واحد بدلوا شوش معه وهذا حق رؤون بريا مركبوا حضرك العيد أمان يهذا الوراق ليسوا صدر إيميل ده عيد يوحى ليسوا قرأ أو أيرين يان لكن وحنا فاهمين تعايد ده رخيص كا بروباغندا ده لوكال كا وحكوشة قيسا تذكر اللوكال كا أي بتشين كريان أما أكا أقوم بدين وايد بين اللوك بين لا ده اللوك تامر كلا قرطه وحيرنت إمكانه وأركز أبا completely ما من قبل هذا دي سومالدو ويسكسو يعيا وايد مجتمعي ما كسر دالي قبيلة نمر والبا ربا إنه يسوق ومدة كوكورن ولا هذا وقفنا كل نقطة ومدة أنت كلنا أي نقطة تد يجا قاد كا محكمة دي ملتري nimankii baarlamaanada u joogay nimanka gudiyada ay doorashada u galaan nimanka la dagaalama musuqmaasuq oo iyagu ay soo magacaabaan oo la oran karaba waa taayiradii uu musuqmaasuq ku soconayay baarlamaanku sheegi meesha joogay nimanka dibadda ay ku shaqeystaan electronic army la yiraahdo ama dubaabal electronic dadka website-ada iyo uga shaqeeya internetada ee lacagta ku qaata intaas oo dhan wax lacagta la siinaya waa lacagtii ummadani lahayd iyo wixii ay caawimo lahayd iyo dhaxalkeedii iyo asalkeedii iyo aqoonteedii iyo caafimaadkeedii oo la isku wada daray haddii awood u leeyihiin 14 qof ee qaylinaya ee dibadda ka qaylinaya ee ka dhab tahay Soomaalinimadu ama ummadnimadu ama dadkooda u danqaraya ee 24 saacadood daacadda u sameynayaan way sumeyn lahaayeen hadday itaal u hayaan laakiin waxa ku muuqata inaanu itaal jirin lacag iyaga ugu badan ee boqolaalka kun waxa ay ku bixiyaan waxa weeye say isugu dhiqi lahaayeen ama ay isugu meeyri lahaayeen ay ugu samaysan lahaayeen sumcad aan jirin oo qofkii lagaaga dhigo qof ummadda u danaynayo oo meesha u jooga لكن حقائق مركز يكتب وعم مقصد سديد ده دارود وحلي مدحوينها أفرتها كله وحلي كحجين كيسة شنطة وحلي وسير كعشان دقة
baabuurta halkaa ka shaqaynaysa ee wadada lagu dhisayo waxaa leh habaryartii oo gobol walba ku camiman ee aan gobol keliya ku koobnayn ee gobolada Soomaalida oo dhan ku kooban intaasna waxay ka go'an tahay iyo meesha ay ka maqan tahay waa qofka meesha fadhiya ee caalamkii kale isla qireen inuu macluulay laakiin garan waayay intaad soo baxdo sida ummadda kale soo baxdo waxaaga difaaco waxaa qolo ku ah qofka ilmahaaga iskuulka geynaya waxaa qolo ku ah qofka karaamada aad leedahay ilaalinaya caalamkana qarbiga ee horumaray kumuu horumarin hadal wuxuu ku horumaray ummadda oo soo istaagtay oo qof walba u dhankiisa wixii ka ilaashaday markaasaa faqrigii laga gudbay markaasaa gaajadii laga gudbay markaasaa baqadintii laga gudbay markaasaa jeelkii laga gudbay markaasaa qofkii bani aadamkii inuu xorriyad yeesho uu cabiri karayo waxa qalbigiisa ku jira waa wixii qur-aanku ka digay munaafiqiinta waa kuwa ugu hooseeya fi darki al-asfal halka ummadda Soomaaliyeed la geeyey ninkii wax garadka xitaa wixii baanu ku dhawaaqi karaynin oo uu ka baqaya ama in lagu xiro ama in lagu bureeyo ama in qofay wax isu yihiin wax lagu yeelo masiibadaas ayaa haysata taasna waxa lagaga baxaa mujtamaca bulshada oo soo wada dhaqaaqda hal mar oo ka diyaar garowda fahantana dhegaysanina una camirin propagandada iyo dadka ay ku shaqaystaan ee internetada dhex fadhiya ama tviyada gaarka ah ee lagu sameeyey ee la doonayo in beenta lagugu celceliyo ilaa aad rumaysato adoo arkaya ayaa lagu leeyahay waxani maaha wixii reer koonfurka waxay tuugu marka uu cararo gudcurka illa eriyado وسنو سيقيليا توجا قبتها مركل أو توجا قبتها يبغى قف كهريو مسكينة أيام موجودات كان صويا عيالي سجل هذا أنا عرّا هل كاسة سجل على كاسات هل كتوك نقطة ومحكمة لوجيا الله وحنا بجبا يجولانت بط الصومالية دي محاكة الشح أو أي كانت ومحا عواقب ككدعة وحل سوسو العليو قرآن كريم كأ الله كجش كيو ومديه هراء الدمي أما عاد أما ثمود أما فرعون يكبر كيسي ما هم معني يسوء إن لقوم مدى داشوخ وحلو سوسو العليو وعبرة وأنا waxaas umada ku dhicin go'aan laga gaadha taariikhda laga qaata awaaqibta ama consequenceska ama waxa laga faa'iido musuqmaasuqa iyo xididadiisa ayaynu kormareynaa waxa laga faa'iidaa bulshadaas oo akhlaaqiyan u burburta baahida ayaa keenta xaaraanta ama dumar ha ahaadaan ama dhalinyaro ha ahaadaan ama kuwa dhexe ha ahaadaan qofkii markuu meel allaale iyo meel uu ku hagaago waayo waxa uu ku wareegaleysanayaa waa qaad iyo khamri iyo wixii ka sii liita iyo xashiishad iyo dumarkii oo xumaada ayay keentaan nimankaas lacagta ay ummadii ka urursadeen halka geeyeen fakhri iyo wax la'aan ayaa yimaada cimriga qofka oo soo garto oo cimrigaaba jib qofka haduu caloosha ka baahdo aqligana uu ka baahdo cilmigii oo burbura oo dabkaga bay noqda way wixii jaamacadda gali lahaa wixii wadada gali lahaa wixii iskuulka gali lahaa wixii waxbarashada kale gali lahaa wixii dhar samaynta gali lahaa wixii qofka tababarkiisa gali lahaa wixii darawalnimada bari lahaa intiiba dad isku reera oo maamul u sheegtay ayaa gacanta kaga dhigay ummadii oo iyaga laftoodu aqoon ay leeyihiin aanay jirin way 200 milyan ay urursanayaan maba laasan karo qofkii laakiin waa top ilaa downkii ayaa isla burburay fasaadka iqtisaadiga ah ee meesha ka dhacay musuqmaasuqaasi waa booli qaran waa cashuurtii dadka loo urursanay waa mucaawanadii caalamku siiyay maaha waxa dadka gaar u leeyihiin waa dhulkii dadka waa dekadihii ummaddu la iibinayo waa airportadii la iibinayo فساد الإداري معمول حمدي إحدى ما كوسي هوستي توا وسيرة إسكو ريركا ما والبا فديا ودتك محلل كأب قبل والبا برلمان هذا ومدة أفديا تن يعرب أي ماشي أمريكا أي حشي فساد كي أما فساد كي أما مسوقي شرع الدجن تيبي قاعدين فساد برلماني مالنا هلا بقى هلا بمدق لأولي مالنا وما في يقبطو مركا أمتها واحد مدة إنك مسيبة كل عليه فساد قضائي maxkamadihii oo dhan ba iyana faasid ah oo waxa la qaadanaya marka askarigi kii ka soo hoysiyo xog hayntii kii suuqa joogay intiiba wixii waxa looga dhigay wax caadi ah inay tahay kii ugu weynaa dadka markuu wixii waarwaariyay oo wixii gurinayay ka ugu hooseeya wuxuu arkay inuu wixii caadi tahay shacabkiina waxa looga dhigay xaaraantii inay xalaal tahay oo wax caadi ah tahay arrimaha loola dagaalamayo ummadda ka hadasha ee ugu weyn wata check and balance ninkii la dagaalanka musuqmaasuq loo magacaabay isaga soo magacaabay waa qofka ugu horeeya ee musuqmaasuqa baaka ama adeer buuye ama abti buuye ama ilmaadeer buuye ama laaluush qaatay meesha la keenay weeye shacabkiina waxa looga dhigay xaaraantii inay xalaal tahay oo caadi tahay warbaahintii ka hadlayd caalamka kale warbaahinta ayaa ka hortagta qofka musuqmaasuqa oo ka qaylisa badhna waa aragtaan waa la wada xiray badh waa la toogtaa meelaha qaarkood muqdisho oo kale badh waa la eryadaa badh dacaayad baa lagu furaa oo la doonaynin inay ummaddu waxa meesha ka taagan ay maqasho توجدي بالشرعية وقف كي توجها يا لقولي احترام سي ومدحوينه كي برلمان كتوجي توجا بلقولي واحد دبعنا احترام سي هالكل ولا ورو توج ومدة حلاقة قبطه تاس أيام اللي نجارسي وحي أسفل وسافلين وماشي وجوه سيسي
dhaqaale burbur baa dhacaya, dib u dhac guud oo wadankii ku imanaya, dhisma iyo dad ahaanba ummad ma burburto ilaa maskaxda ka burburto. Maskaxdii ayaa qofkii uu ka burburay aanu la soconba waxa meeshiisii ka dhacaya. caafimaad darro oo laga yaabo qofkii inuu kaneecaba u dhinto isagaan xanuun kaleba soo gaarin waayo lacagtii caafimaadkiisa loogu talagalay. Marka ilaa intaasoo dhan ummad walba in ka soo xagto kii la keenay ee lagu keenay eexda idaariga ah ee khaldan ee maamulka ninka isku reerka ahaayeen ee loo dhiibay dhakhtarka ayaa intii dawadee soo gaadhay isna dib u qaadaya oo ula kacaya farmasiyadii suuqa yaalay oo kasoo iibinaya. marka waxa weeye ummad gebigoodba marka horeba boosaneero ku dhacday, colaad ayaa imanaysa iyo ummaddii inay kala qaybsanto. dad lagu soo diyaariyey oo aad moodayso inay qabiil wax ku difaacayaan laakiin laaluush wax ku difaacaya oo aan ogeyn ay kuwii kale u arkayaan sani kuwa kale isu gaarin afwaajin la yidhaahdo oo lagu sii beegay. waxaa lagaga bixi karaa markaynu soo guraaradno ummadday waxa weeye kacdoon shacbi ah iyo wacyigelin inay yeelataan oo qofku waxa uu dhegaysto uu weeleeyo oo maamul goboleedka iyo gobolka iyo degmada uu joogo uu dib ugu noqdo oo uu bal eego oo uu ka fekero iyadoo qofkan ila isku qolayne waxa anigu aan ku qabo iyo ummadda kale ku qabto iyo cidda xaaraanta u banaysay u xalaalaysay ma nebi cusub baa soo degay la isweydiiyo weeyaan in la soo tabiyo dhammaantiin intaa leegtiin idaacad walba oo u aragtaan u dareentaan inaan ahayn dadka la sumeeyey ama la duray ama la suuxiyey u soo gudbisaan wararka haystaan waayo waajib sharci ayaa qof walba ka saaran in ummadan wacyigelinteeda laga wada hadlo Soomaaliyeed deegaan kasta degatay ama kuwa xorta ah ama kuwa la haysto labada kay doontaba ha noqotee inaan looga dib looga gabanin qofkan isku reerbaatiin qofka isku reertiin waxa weeye qofka danta reerkaaga iyo ummadaada iyo caruurtaada iyo shakhsigaaga iyo karaamadaada iyo diintiisa ilaashanaya ayaa isku reertiin inay bulshadu fahanto propagandada iyo dacaayada meesha lagaga shaqeynayo sababta waxan oo lacaga ay ugu bixinayaan waxa weeye inaan ummaddu ku soo toosin way hal maamul goboleed waxa ku filan 2,000 oo qof oo magaalo walba ka soo baxa oo iskuulada ka soo baxa oo dhalinyaro ah oo waxaanu xaq u lahayn baan doonayna annaga wax dooranayna annaga qofka aan doorayno keensanayna annaga qofka aan doorayno iska eriyayna ilaa la soo dhinac istaago dadka daacad ah dad fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ku dhex jiro oo gudo iyo dibadba jooga oo u daacad ah inay u bareeraan la dagaalamaan musuqmaasuqan dhan walba ka soo galay ummadda Soomaaliyeed ayaa jira in la dhinac istaago in dhalinyaradu ay sidii berigii hore loo lahaan jiray ay u yeeshaan ururka dhalinyarada ururka ardayda ururka jaamacadaha ururka xirfadlayaasha waxa engineering ay barteen ururka xirfadlayaasha dhakhaatiirta ururka xirfadlayaasha neerasta oo haddana ay dalad guud sii yeeshaan oo aan la idigu maaweelinin nidaamada noocaas ayaa doorasho ummadda u qabanaya waa khaa'inkii la yiri maxkamadiisa ayuu isku qaadaya tuugiisa ugu maxkamadda xaakimka ka ahaa weeye waa ninkii dhakhtar kale ahaan jiray sheekadii dhakhtar kale ka ahaan jiray doctorka marka waagu bariyo habeenkiina ahaan jiray tuuga cawjadlaha ah ee guryaha u dhaca Master Hyde and Dr. Kelly weeyaan ee filimada badan iyo riwaayadaha laga sameeyay Ingiriiska la garanbo waayay laakiin subaxii waa nin dhakhtar oo shaqo taga ee wadadka habeenkii guryaha jabsaday ee la laayahay waa kuma ilaa aakhirkii la ogaaday ninka dhakhtarka fadhiya subaxnimadu inuu habeenkii cawjadlaha guryaha jabsaday isagu yahay. dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan ugu leenahay feejignaada wixii war ah ee haystaan ee ku saabsan musuqmaasuqa la dhacayo dhaxalkii adoogiina wada gaarsiiya dhammaantiin idaacadaha ku hadla codka xorta ah ee Soomaaliyeed waa mahadsantihiin nool